Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Question is su'aalo and answers iyo jawaabo about ku saabsan job interview kulan wareysiga shaqada. Part 1 qaybta koowaad. The first interview question is su'aasha ugu horeyso ee kulan wareysiga waxay tahay ee qofka la weydiiyo. Tell us about yourself. No sheeg wax ku saabsan qudaada ama naftaada. So here is the answer. Halkan waxaa jawaabtii. My name is Ahmed. Magacaygu Ahmed. And thank you for waxaad ku mahadsantahay ama ku mahadsantiin for giving me this opportunity. Fursadan aad isiiseen today maanta. I have waxaan leeyahay the skills, xirfadaha and qualities iyo tiyooyinka needed looga baahan yahay to match in looga aayo taliyo ama lagu go'aamiyo the job description and to perform iyo sida loo fuliyo ama loo guto highly si hersara in the role doorka makaalinka kulada. I have experiences waxaan u leeyahay khibrado of working with other people la shaqaynta dadka kale. I'm someone waxaan ahay ruux ama qof who's always had a jeer seeking radio to learn inuu wax barto and develop una ishormariyo. And I have waxaan leeyahay the creativity hal abuurka to help your business grow aan ku caawi karo ganacsigiina ama howlihiina inuu kobco. Whilst offering goorta ama marka ay tahay bixinta excellent service adeegyo fiican to your customers macaamiishiina. Outside of work markay tahay shaqada marka ka bax wixii shaqada ka baxsan outside of work shaqada ka banaankeeda. I keep myself fit and active. waxaan nafteyda ku xafidaa ama ku ilaaliyaa inay ahaato mid caafimaad qabto oo firfircoon active exact. I'm a positive person. waxaan ahay qof exactly positive ah wax ogol wax dhegeysta wax adeeca exactly positive person who always had the jeer embraces aqbala change isbedelka. And I will always had the jeer take waxaan qaadi doonaa responsibility mas'uuliyadda for my own professional development horumarkayga xirfadeyda shaqo ee ii gaarka ah. Improve your pronunciation. Question is and answers about job interview. Part 1. The first interview question is tell us about yourself. My name is Ahmed and thank you for giving me this opportunity today. I have the skills and qualities needed to match the job description and to perform highly in the role. I have experiences of working with other people. I have experiences of working with other people. I'm someone who's always seeking to learn and develop. And I have the creativity to help your business grow whilst offering excellent service to your customers. Outside of work, I keep myself fit and active. I'm a positive person who always embraces change, and I will always take responsibility for my own professional development. Thanks.